بسم الله الرحمن الرحيم أردي كسور هذا جامعة أوشيان University maanta waxaan bilaabi doonaa cashirkeeni koowaad ee maadada breastfeeding-ka. Waxaan hadli doonaa waxyaabaha breastfeeding-ka quseeyo haddii aan lahayn dhan walba. Marka koowaad waxaan ka bilaabeynaa maxaad ka taqaanaa naasnuujin horta? What to know about breastfeeding? Maxaad ka taqaanaa naasnuujin? Waxaa leeyahay as new mom markay tahay mamada markay tahay you wanted to make sure waa inay dib u hubisaa your baby cunugeeda is off to grade start waa inay si markaas ay ugu bilowdaan naasnuujintii. And we do too ama maxaa marka si aad ah. That is why we are committed to educated parents about the benefits of breastfeeding. Taas waa marka committee aan ugu bixinayna ama aan educated garanayna ama aan u barayno parents waalidiinta about wax ku saabsan benefits faa'iidooyinka ay leeyihiin of breastfeeding naasnuujinta. And encourage ama inaan ku dhiirigelino all mothers hooyooyinka dhammaantood to prepare si ay u diyaariyaan maxaa marka advice in uga faa'iidaystaan with the goal hadafka of exclusive breastfeeding oo laga leeyahay maxaa marka naasnuujin is xigta. Exclusive breastfeeding marka lagu leeyahay maxaa weeyaan in naasnuujinta ay noqoto mid is xigto. Mid is xigta marka lagu leeyahay waxaa weeyaan waa mid barax tiran aanan lagu darin waxyaabaha kaleento sida bottle-ka oo kaleento ama artificial milk-ga waxyaabaha loo yaqaano oo cunuga caano naaska ka baxsan aan la siin ilaa uu ka gaaray 6 bilood oo kaleento. Your baby iyada cunugeeda marka during inta lagu guda jiro your hospital stay inta ay joogto isbitaalka markaas ay dhashaba in loo bilaabo maxaa loo bilaabaya marka cunugiina loo bilaabo caanaha loo bilaabo. Waxaa marka the evidence is a clear waa iska cadaa dad breast milk ina maaragtay naaska caanaha spacey u wanaagsan yihiin and most healthy inta badan ay caafimaad u leeyihiin newborns maaragtay ilmaha markaas dhashay required in u baahan yihiin only in loo sameeyo breast milk in la siiyo caanaha naaska la siiyo for the first 6 months of life inta ugu horeysa ee 6 bilood ugu horeyso. Waxaa leeyahay marka the family breast place of markii family breast oo noqdo ama breast ay noqoto family breast ay noqdaan ay u dhashaan maxaa marka ama breast ay ku dhasho aad maxaa marka in Goldwood hospital oo kale ama in Goldwood ama medical center officer ama xarumo caafimaad. Waxaa leeyahay marka the natural team ahaan of specialists si gooni specialist u ah ama ku xog leh who will support waxay ku taageerayaan you and work closely with your before and after your give birth markay dhashay iyo markay intaysan dhalin ka horba waxay ku taageerayaan in loo sameeyo maxaa loo sameynaa marka maamada breastfeeding iyo cunuga loo sameeyo. Marka faa'iidooyinka uu leeyahay breastfeeding-ka maxaa ka mid ah marka benefit of breastfeeding waxaa leeyahay marka breast milk-ga is rich waxaa ka buuxa nutrients nafaqo ka buuxo ama nafaqooyin ku jiro ama ku badan antibodies waxyaabaha antibodies ku kala tayana waa laga helaa to protect your baby si uga hortaga markaas dhibaatooyinka ku imaan lahaa cunuga ku imaan lahaa. Stanch waxay bedelaan marka to feed your grow babies needs wax alaale wixii oo wax fidka oo protein la oo koriimo aha oo u baahnaa maxaa marka cunuga u baahnaa. Researcher shows breastfeed babies have lower risk of waxaa leeyahay marka cunuga loo sameeyo naasnuujin fiican loo sameeyo. Research markii lagu sameeyay waxaa la soo ogaaday inuu ka badbaad qabo ama ka caafimaad qabo waxyaabaha cudurka sida diabetic oo kaleeto type 1 iyo type 2 oo kaleeto xitaa inuu ka badbaadayo ayaa researchkii la sameeyay lagu ogaaday marka. Breastfeeding-kana waa wax aad u fiican oo u wanaagsan una baahan maxaa marka in mar walba maamada lagu wacyi geliyo ayna sameyso. Waayahay
For mothers research maamooyinka lagu sameeyo researchkan ama baaritaankan loo sameeyey researchkan loo sameeyey maxaa marka as waxaa leeyahay showing that breastfeeding can lower the risk of type 2 diabetes inaysan ku dhacaynin cunuga loo sameeyey breastfeeding ama nuujintan exclusive loo sameeyey kuma dhacaya le marka type 2 oo diabeteska ama macaanka ama sokorowga dadka u yaqaanaan breast marka naaski and ovarian cancer wax la yiraahdo kuma dhacayo naaskiina kuma dhacayo cancer iyo waxyaabahaas oo maamada inay caanihii ku ceshoomaan waxa laga yaabaa inuu cancer iyo waxyaabahaas ku dhacaan laakiin kuma u dhacayo marka haddii ay samaysan nuujintaan haddii ay samaysan before your baby present intaysan dhalin ka hor cunugana waxaa leeyahay marka don't wait ha sugina lema until you are in the hospital inta isbitaalka ama hospitalka ayaa leeyahay marka inaad sugto ma aha to begin things waa inaad ka fikirtaa marka about breastfeeding wax ku saabsan waxa laga wadaa waxay tahay inta isbitaalka aad ka tagto oo lagu yiraahdo cunugaada naas nuujin u sameey inta lagu yiraahdo ha sugin laakiin ka fikir oo bilow waxa ku saabsan breastfeedingka the best time oo markaas waqti wanaagsan to begin prepare suna diyaarina marka inaad sameyso maxaa marka during your pregnancy inta lagu guda jiro saad u sameyn lahayd naas nuujintii waxyaabahaas aad u sameyn lahayd adigoo ka fikiraya marka waxaa leeyahay marka during your hospital state intaad hospitalka joogto ama isbitaalka joogto maxaa marka every member of Inglewood Hospital la dhahay and Medical Center ama postpartum teamka postpartumka qofka markuu dhalay is your all and will work with maxaa marka you to supported your breastfeeding goals dhammaantood waxay kugu taageerayaan ama waxay ku sheegayaan inay kugu taageerayaan maxaa marka hadafkaad ku gaari lahayd natiijada the nursing staff dadka nursingka ama staffka oo ka shaqeeya isbitaalka and are all special training waxay u haystaan tababar gooni ah and educated to waxayna ku barayaan marka assisted ay ugu sameynayaan patients bukaanada with breastfeeding inay naas nuujintii waxyaabahaas ay baraan in addition waxayna ugu daraan marka certified inay xaqiijiyaan location goobta ama lactation ay noqoto maamada ay nuujiso consulting inay u sameyso oo naaski maxaa marka naaski naas nuujintii lagala taliyo will be able si uu awoodo marka to provide inay bixiso additional education and maxaa marka supported as needed loo baahan yahay after you go home marka ay guriga aado qoftii way dhashay cunugii sidii tababarkii waxyaabahaas loo siiyey and no matter how you feeding your baby alive with newborn marka waxaa leeyahay marka dhibba kuma keenaya markaas sidii cunugeedii markaas ula noolaan lahayd ama si ugu sameyn lahayd naas nuujinta cunugeedii markaas ay dhashay ee cusbaan newbornka ahaa can be maxaa marka challenge iyo isbedelkii markaas oo ku imaanaya marka ayada for first a few weeks isbuucyo kadib most babies do not eat marka wuxuu noqon karaa marka isbuucyo kadib cunugaana wax cunin ama sleep aan hurdin on regular si isku mid ah marka the following types marka waxyaabahan soo socda can help you waxay ka caawinayaan to continue inay sii wado breastfeeding naas nuujintii maamada when you retire at home markii ay usoo noqoto maxay usoo noqonaysaa marka guriga ay usoo noqoto maamadii waaya waa intaas hordhacana maanta ayaan kusoo gabagabeyneynaa qaybta kale aan gelaynaa hadduu la yidhahdo introductionka ah maalmaha suuxiga hadduu la yidhahdo ama maalinta waqtiga dambe ah hadduu ay baraali ka noqdo marka waxaan leenahay cashirada wixii niigu adkaaga ama aad ka dareentaan culays dib ayaad noogu soo celin kartaan su-aalna waad naga soo weydiin kartaan ardada jaamacadda Ocean University soo dhawaada waxaan rajaynaynaa intaan in ka badan aan isla joogno waqti badanna maaragtay aan isla ka fargareen hadduu la yiraahdo marka kusoo dhawaada